mahadsanid kusoo dhawaada dhageystayaal war wixii caawa naga soo gaaray adduun weynaha CBS-ta oo ah xafiiska tirkoobiyada dalka Netherland u qaabilsan ayaa warbixin u dhawaanta soo saaray ku sheegay inay Soomaalidu yihiin sanadkan kuwa ugu badan ee magangeliyo doonka ah ama qaxootinimada weydiistay dalkan Holland waxaana sanadkii hore oo kaliya soo galay dalka Netherland oo weydiistay magangeliyo in ka badan 6,000 oo qof oo Soomaaliya guud ahaanba waxaa sanadkan soo galay ilaa 16,200 oo qaxooti ka kala yimid wadannada adduunka kuwaas oo dhammaantood weydiistay dalkan magangeliyo waxaanay tiradani 12% kor u dhaaftay ama ka badan tahay qaxootigii sanadkii hore ee 2008 soo galay dalkan waxaa sidoo kale qaxootiga Soomaalidu soo raaca iyaguna kuwa ka imaanaya wadannada Ciraaq iyo Afghanistan oo wali soo qulqulaya sanadihii sagaashaneeyadii ayaa CBS ku tilmaantay in ay dalka Netherlands soo galeen qaxootigii ugu badnaa Holland ee magangeliyo doon ah waxaanay intooda badan ka soo jabeen wadankii hore loo oran jiray Yugoslavia Soomaalida ayaa noqotay sanadkan kuwa ugu badan ee magangeliyo doonka ah kuwaas oo dalkoodii wali yahay goob dagaal oo aan lagu noqon karin barafka wali ka sii daaya dalka Netherlands ayaa si weyn u curyaamiyay gaadiidka qaybo kamid ah gobolada dalka Netherlands gobolada waqooyiga iyo koonfurta dalka ayaa wadooyinka qaar ay fiilooyinku gaadheen 375 kilomitir oo ay baabuurtu istaba joogeen wadooyinka waaweyn ee ku xeersan magaalada Rotterdam ayaa ahaa kuwa ugu fiilooyinka dhaadheer 12 oo iyana isku xidha magaalooyinka Den Haag iyo Utrecht ayaa noqday mid aan la mari karin cidii martaana ay saacado ku go'doontay ANWB-da oo ah shirkadda u qaabilsan dayactirka baabuurta iyo guud ahaanba warbixinta isticmaalka wadooyinka dalka Netherland ayaa uga digaysa wadayaasha baabuurta wadooyinka qaar waxaanay uga baaqday in ay TV-yada iyo raadiyoyada la socdaan inta aanay jidadka waaweyn marin waxaana sidoo kale barafku curyaamiyay dalkaasi Belgiumka oo isna wadooyinka qaar aan la mari karin sida wadada isku xidha magaalooyinka Antwerpen iyo Brussels xukuumadda dalkaasi Colombia ayaa lagu soo waramayaa in ay cagta marisay kaamam ay leeyihiin maleeshiyada FARC lagu magacaabo ee ka dagaalanta dalkaasi Colombia militariga ayaa daboolka ka qaaday in labadii bilood ee la soo dhaafay ay laayeen ilaa 300 oo kamid ah dagaalyahanada jabhadda FARC waxaana la asaasay jabhaddaasi sanadihii 70-yadii si ay uga hirgeliyaan xukuumad hanti wadaaga dalkaasi Colombia taas oo ay ku guuldaraysteen waxaanay imika noqotay mid lagu eedeeyo in ay afduub iyo isdaba joog ah samayso iyo in ay ka ganacsato daroogada xukuumadda dalkaasi Colombia ee uu hogaamiyay madaxweyne Uribe oo uu taageero Mareykanku ayaa bilaabay sanadahan dambe in ay si ballaaran cagta u mariso saldhigyada jabhaddaasi FARC oo intooda badan ku yaala dhul kaymo hawd ah oo aan loogu tegi karin halkaasi oo militariga Colombia ay dayuurada ku rusheeyaan si ay u baabiyaan cagtana u mariyaan jabhadda FARC xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan hawlaha bani'aadanimada ayaa warbixin uu soo saaray dhawaanta Soomaaliya ku tilmaamay in ay ka jirto xaalad bani'aadanimo tii ugu xumayd qiyaastii 3 milyan iyo 200,000 oo qof oo boqolkiiba 42 ah guud ahaan dadka Soomaaliya ku nool ayaa u baahan kaalmo degdeg ah sida warbixintaasi sheegtay gobolada la sheegay in ay dhibaatooyinkan cuno la'aanta iyo macaluushu la soo darseen waxaa kamid ah gobolada dhexe Mudug galguduud iyo gobolka Hiiraan kuwaasoo la sheegay in boqolkiiba 70 dadka ku nool ay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah goboladaas ayaa la sheegay intooda badan in aanay ka di'in roobabkii hore uga di'i jiray waxaa kaloo ugu sii darsamay inta dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya oo ay ku barakaceen dad aad u fara badan kuwaas oo intooda badan ku nool bannaanada iyo dhulka duurka ah waxaa kaloo warbixinta UNHCR ay sheegtay in ilaa bishii August 2009 ay barakaceen 29,000 oo qof dagaalo culus oo ka dilaacay Dhuusamareeb oo ku taala gobolka Galguduud 25,000 oo qof oo kale oo iyaguna la sheegay inay guryahoodii kaga carareen magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan Muqdisho ayaa ku dhawaad 18,000 oo qof ay ka barakaceen iyadana intii lagu jiray bishii January ee sanadkan
guud ahaanba warbixinta ayaa sheegaysa in ugu yaraan 82,000 oo qof ay ka barakaceen Soomaaliya labadii bilood ee la soo dhaafay. xukuumadda jasiiradaha Seychelles ayaa shaaca ka qaaday in ay bilaabi doonto in ay maxkamadda dalkeeda hor keento kooxaha burcadbadeeda Soomaalida ah ee laga soo qabto xeebaha Soomaaliya, gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiyaba. afhayeen u hadlay xukuumadda Seychelles ayaa ku dhawaaqay in ay tallaabadaas ay qaadi doonto xukuumaddiisu kadib markii ay mas'uuliyiinta midowga Yurub ee ka qayb qaadanaya howlgallada la dagaalanka burcadbadeeda Soomaaliya ay codsi u soo bandhigeen in ay jasiiradaha Seychelles burcadbadeeda maxkamadda lagu soo taagi karo. waxaanu sheegay in codsigaasi ay xukuumadda Seychelles ansixisay ama ogolaatay kadib markii ay kala tashatay mas'uuliyiinta midowga Yurub dhowr jeer oo hore ay socdaal ay ku yimaadeen dalkiisa. afhayeenka dowladda Seychelles oo ku taala badweynta Hindiya ayaa sheegay in uu go'aankani dhigayo in burcadbadeeda Soomaalida ah ay soo qabtaan maraakiibta dagaalka ee midowga Yurub lagu soo wareejin doono dalkiisa, isla markaana ay maxkamad soo taagi doonaan si loo ciqaabo loona ciribtiro burcadbadeeda Soomaaliya. wuxuu sidoo kale sheegay jasiiradaha Seychelles in ay imika gacanta ugu jiraan 11 nin oo burcadbadeed Soomaaliya, taasoo qayb ka ah sidii loo dabargoyn lahaa shiftada badda. waana dowladdii labaad ee gobolka ku taala ee ogolaata in maxkamad ay saaraan burcadbadeeda Geeska Afrika, waxaana hore u aqbashay xukuumadda Kenya in ay dalkeeda ku xukunto Soomaalida lagu qabto iyagoo falal noocaas oo kale ah faraha kula jira. ciidamada Mareykanka ee u qaabilsan qaaradda Afrika ayaa sheegay in aanay faragelin toos ah ku sameeyeen arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya. Saraakiisha military ee qaaradda Afrika ee loo soo gaabiyay magaciisa Africom ayaa sheegay in xilligan aanay si toos ah u faragelinayn arrimaha Soomaaliya, inkastoo ay intaas ku dareen in ay taageero siiyaan cid kasta oo ku lug leh sidii wax loola qaban lahaa dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya. taliska military ee Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa taageero aan toos ahayn siiya dalalka Ethiopia, Kenya iyo Djibouti si wax loola qabto dowladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo sidii nabad loogu soo dabaali lahaa Geeska Afrika. taliyaha militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika General William Will oo la hadlay idaacadda VOA ayaa si cad u tilmaamay in ay xadidan tahay taageerada ay siiyaan dowladda ku meel gaarka. waxa kaloo sheegay in ay dhab ahaantii taageeradoodu ay noqon doonto mid aan toos ahayn oo ay siiyaan ciidamada midowga Afrika iyo dowladaha deriska la ah Soomaaliya. waxaanu intaas raaciyay in militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika jooga aanay amar qabin ay faragelin toos ah ku sameeyaan arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya. taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa sidoo kale ku celceliyay in xaaladda ka taagan waddanka Soomaaliya iyo rabshadaha ka sii soconaya dalkaasi ay caqabad ku yihiin horumarka Geeska Afrika iyo guud ahaanba qaaradda Afrika. halkaad warka kala socotaana dhageystayaal waa hoyga Soomaalida Holland oo aad si toos ah ugala socotaan FM-ta Amsterdam 99.4. warkaygii caawana intaas ayuu noogu eegi dhageystayaal.